laakiin warkan xalay soo duulay oo si kooban loo tusay oo ah in madaxweynihii dalka iyo jamhuuriyadda iyo astaanta Soomaaliyeed laga keenayo mooshin leeyahay la rido waa war aan la qaadan karin meeshii wax laga bilaabi jirayna maaha meeshii wax laga sixi jirayna maaha Soomaaliya muddo dheer bay waxay ku soo jirtay dhibaatooyin iyo rafaad oo dawladnimadeennii ay aad iyo aad hoos ugu dhacday adduunka magaceennuna hoos aaday waxaa hadda muuqanayay ififaale fiican oo intii cabbaar ahba soo socday oo ah inaynu dib ugu soo noqonayno khariidada adduunka iyo maabka adduunka iyo kaalintii aynu ku lahayn adduunka haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyadoo halkaa u socota waxaa la rabaa wixii dhaliilo ah adduunkoo dhan waa la saxaayay sidii qaanuunka ahayd oo nidaamka ahayd in loo saxo barlamaan baa jira waxaa jira in waxyaalaha la isla iskarayo ama la isla falanqeeyo haddii dawladdu ay wax ku qaldanto barlamaanku wuxuu joogaa inuu saxo laakiin inuu dawladnimada oo dhan khalkhal geliyo uma socoto mana aha sidii wax loo sixi jiray haddii dawladdu heshiisyo qalada ay gashay haddii waxyaalo mucayana oo qalada ay gashay oo gaf laga sheeganayo ama gaabis laga tirsanayo waa in la saxaa wixiina la soo proof garaya inta la soo cadeeyo oo bayanada la keeno oo burhaanta la keeno waa waxa loo sameeyay barlamaanada laakiin sideedaba barlamaankan oo awalba lagu qaadanayay dadka Soomaaliyeedna ay ku ogolaadeen dawladnimadoodii inay hana qaato aanay ahayn in dadka Soomaaliyeed mid u soo doorteen iyaguna waa ogyihiin dadka barlamaanka jooga way ogyihiin inaan qof iyo cod lagu soo dooran Soomaaliduna inaanay mid u soo dooran meesha in wada laaluush iyo lagu wada yimaado iyo qof walba lacagtiisa iyo dantiisa waa la ogyahay laakiin waxaasoo dhan waxa ummadda Soomaaliyeed indhaha ay uga laabanaysaa waxaasoo dhan oo jira bal dawladnimadaadii iyo dadnimadaadii iyo maaragtay shakhsiyadaadii adduunka iyo kaalintaadii ama xoogaa soo noqotaa oo adduunka inagu gudaha waxaan doonaa aan isku ahanay adduunka aan noqonaa la yiraahdo dadkii Soomaaliyeed waa taa dawladnimadoodii waa taa madaxdoodii astaantoodii waa ka calankoodii waa kaas intaas way waxa dadka Soomaaliyeed ay u sabrayeen waxaas oo dhan ugu sabrayeen waxa ay ogyihiin oo dhan oo jira oo meesha iyo waxa lagu shaqaysto iyo waxa maaragtay ka jira marka in haddana wixii la yiraahdo dib ha loo celiyo wax oo dhan ha la isla dumi oo guriga madaxiisa nin dantiisa waayay ama maaragtay jago waayay ama contract waayay ama maaragtay qandaraas waayay ama maaragtay dawladda shisheeye iyo dad shisheeye ay maaragtay soo maalgeliyaan waxaas in lagu shaqaysto oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda 1500 oo dhalinyaro ah baa halkaan fadhiyay maanta qaacadan fadhiyay mid walba wuxuu jecel yahay dhulkiisa inuu wax ka noqdo dalkiisa uu tago ayuu jecel yahay haddii dalkiisa maalin walba lugta lagu dhagan yahay oo aan la rabin dawladnimada inay u hana qaado oo sharafi u hana qaado oo ummad is-ixtiraamta oo kala dambaysa ay aanu lahayn haddii saas la rabo sawirka in loo sawiro maalin walba xageebay mustaqbalkoodu aadayaan dadkan iyo inta la mid ah oo Yurub iyo Mareykan iyo meel walba daadsan iyo Carabaha daadsan laga soo celinay xageebay aadayaan annagoo dhan baa waxaanu hiyo u qabnaa dalkayaga inaanu si nabada u tagno oo aanu u joogno intii dawladda lagala shaqeyn lahaa dawlad walba qalad way leedahay laakiin waa in lagala shaqeeyaa wanaaga waa in lagala shaqeeyaa horumarka waa in la is ixtiraamaa waa in la is qadariyaa midda kale dadkan hadda waxaan doonayay inay dumiyaan oo iyagu doonayo kursi kaliya uu ka lumay kuwa horay u soo qabtay iyo kuwa aan horay u soo qabanba kuwa horay u soo qabtay oo horay u soo maray kuraasta iyo kuwa aan u soo marinba oo uu kursi ka lumay oo madaxooda dhan aan ummad Soomaaliyeed ku jirin oo aan dan Soomaaliyeed ku jirin oo aan ummadda baabacaysa oo dalkeeda iyo meel walba ku balan bashay aanay u muuqan ay u muuqato kaliya isagu see kursi ku helaa isagu see jaga ku helaa reerihiisa iyo caruurihiisana meelaha iyo dalka kala geystay oo aan ognahay oo la socono oo guryaha ka qaata dawladaha kale iyo dadka kale ay guryo u dajiyeen oo filooyin u dajiyeen oo qusuur ay u dajiyeen ayana haddana dalkan inay ka shaqeeyaan luga ku dhagigiisa inay ka shaqeeyaan wax ummadda Soomaaliyeed aqbalaysa ma wax raali laga noqon karana ma dadka Soomaaliyeedna waa inay waxa soo kale maanta ay ka dhiyaan qabiil aanu kala qaybin oo maartay gobol aanu kala qaybin ee ummadnimadoodii iyo dawladnimadooda inta yar ee u ifaysa ay ilaashadaan waxaan doonayay inay kala lumiyaan ay ka diidaan dadka Soomaaliyeed waa inay ka diidaan waa in laga diidaa oo mooshiinadan wax duminta ah oo laga bilaabayo hal la dumiyo iyo hal la ciriyo iyo hal la saaro laga bilaabayo hal la joojiyaan leena ummadana dan uma aha laakiin wixii qalad ah oo jira si wanaagsan hal isugu sheego hana la cadeeyo hana la soo cadeeyo taaqdiisa hal la keen meesha laga cadeyn lahaa bay joogaan ragga barlamaanka jooga xildhibaanada meesha laga cadeyn lahaa bay joogaan
كسو عديان هكسحان بان لنا ومد أنه ساسان أقول نصيحين ساسان أقول نصيحين ساسان أشيجاية هذه أيضا بريئة وحاجة فريسانية أنا وحن ليا بنهي أو وحيابه بعقل بني آدم كي يأدونك ويسويدينا وحوي قفك هد الدومين يشرف النمذا مدحوينه مركا وياه ما محمد عبد الله فرماج واستانتي مدح نمذا الصومالي يدول نمذا الصومالية بو يسوي كرسي وكفردية شلنا نينك لا كفردية ضرات كهريسنا نينك لا كفردية مدول بساس الله احترامية هدي أن الله احترامين أدو أتساء الدمسو وأدلكتو كدكتو وأدقاقي سديدو وأشرفت كردو وأدمقع كردو أدو بري حاجة فريسانيس حاجة فريسانيس ويسويدين كرسي قاعد فريسانيس حاجة يلا كرسي جواب الدمسي كرسي جواب باب سوى بربرسي أقل كوالي سنة الدمسي حاجة بات فريسانيس هذا أدو وحي احترامين سيدا ودوني سابريتو إن لقو قدريو إن أمد نمال لقو قدريو إن أستانتي قرنك لقو قدريو وردونك وايس قدرية انت سود دولة دودو أدونك بعد تيفي هذا إذا عادها كدا ونسان إياغو إسديدن ودد لديدين شعب كود انت دي ولي بدد لصوت دورتيئة باهدنا الاحترامية ومدحوين النمال الله احترامية oo maartay hogaanimadooda loo ixtiraamaya wixii qaladana loo sheegaya wixii qaladana loo sheegaya islaamku mucaarado waa hadmi islaamku wuxuu yaqaanaa nasiixo waa la isu nasiixaya nabigu kaleey salaam wuxuu ad-diinu nasiixa qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immati almuslimina wa 'aamatihim waxa kamida madaxda oo loo nasiixaya oo wixii qalad loo sheega oo wixii sax loo sheega oo wixii run ah loo sheega waa loo sheega waana la saxa laakiin wax lama dumiyo khalkhalna laba amur ومدنا قبيل وما كلا قبيل لا ما نكلا قبيل أنت أصلا أنا وسومالي وقلنا صحيحين يا ذات كذا وحجرتك هي أمدا سوماليين وحن ليه وردوا لنا من الدفاع يمجي عند الدفاع ما هقف إلا الدفاع لكن وحن ربنا أنا وضل كي يجي أنا وسنا بدو قلنا ولا عرورتان ميلها دات سنة ودولكو كوبلا برشنا دولكو دي إنه قلنا كلام مدة أنا دوني إن مدة سوي وضد هذه وحبا كم وقنا هي هلا سيت من تابي يان لبدومين إنه لوجه لودي وبالله توفيق علماء مر والبه ديار بيوتها وانا كشقيسا هبين يمالنا وأوتاجنت مدحدي لا كلنتا كوا كلي لا كلنتا dadka kale oo ka soo horjeeda la kulanta kuwa damaca madaxweynenimo ku jiray la kulanta kulligood waa la kulmaa shacabkana way wacyi gelinaysaa weyn la hadlaysa diyaar bay u yihiin maxay u ahaan waayeen iyo doorkoodii way dadka dhan bay u dhaxayaan cid aan gaar anagu maartay u leexanayna ma jirtay qadiyada danta Soomaaliya iyo dalkan iyo diintiisa taas aan la khusaysan qofna ma khusaysan